waxay yiraahdeen waxaa next oo kugu xijireenaa ninka la yiraahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari la geeyo fanaan baa tahay فنان باتاي سان هدا كل ما تو وبي نارا لغو ريدا فنانينta waxa la yiri maalinta ma qabo wabi naara lagu ridaa saan hada ku dhimato ahlu naarata ama diinteena islaamka ma qabtaa in qof muslima heeso waa maya alla agtiisa xaraam ay ka tahay in qof muslima heeso maalinta yoomul qiyaamada waxa la marsii doonaa cadaab daran aad iyo aad waliba u daran waa tahay daahir cali sow aniga kuma dhahayo malaa'igu waay ma iga waaweynayeen wax isku maleey jiro kulay dawlad iyo wax isfaansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxa u maleey jiray qof waad qabtaan laakiin adii daahir cali sow markaas qabtaan haddaadan ka dambi badneen daahir cali sow kuma dambi yirin laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska mid tac oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoon raganimo aan lahayn Soomaalnimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin sharma boyga hawiye hees ku bahdilay ee yiri awowga kursi ka cijray sharma boyga yiri kuwii tali jiray dadku isku ma jiray waligood tali jiray oo uu kala jeedo maxamed siyaad bro asaga laa daaro oo kala jeedo oo hawiye ku bahdilay ciyaalka waliba yar ka maaragtay hawiyaha ay ku heesayaan maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid oo la yaqaano oo magac ku leh oo dadka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye sharma boy adiga waxa tiri daahir cali sow dadka uu ka dhashay ma ahan dad cisho kara xitaa waxa tiri ma ahan dadka uu sheeganayo daahir cali sow aniga hadda qolada rabaa sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay ma jeerteena ka soo jeeda wax sheegad la yiraahdi wax warday la yiraahdo male ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan adiga ma leedahay dadku cishta ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleenayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay nin askari oo ogaadeere oo jooga Nairobi laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga waa magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay waxa waay in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama looga dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo ilaahay ma jirto ma jeclid reer Hargeysa ma jeclid reer Muqdisho cid aad jeceshahay waxa ka jirta dadka adiga ka dhalatay waxa waay qofkan hadduu qaldan yahay qabsan karo sharma boy qabyaalada waa ay ka buuxdaa saaxib waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan oo ka dhashay qabiilkan in la isku barto waa muhiim maahan qabyaaladu qulubta ma ahan laakiin la fahi baasha kaaga jirta ninkii ilaa hadda uu dib taagay teeda anoo dhan family waa ka dhalanay laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaa ka dhashay waa sheegay fahi baasha kaaga jirta waa kugu wadanaa dadkaaga jeclaa waragnimo aniga dadkayga waa jeclaa Soomaalidu qabyaalada waa ay ka xishootaa كومنتيرو بينا برانتيرو ها وحوي قبيليستا تاي دقبرو sharma boy adiga waxa tiri daahir cali sow dadka uu ka dhashay ma ahan dad cisho kara xitaa waxa tiri ma ahan dadka uu sheeganayo aniga hadda qolada rabaa sheegan karaa ayagii baa igu soo reeyo dad caay ayaga ugu soo reeyo warday weeyay sheegad weeyay laga dhaadcinaya oo lagu shubaya wax sheegad la yiraahdi wax warday la yiraahdo male nabadoon looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan nin askari oo ogaadeere qof qol cid oo ka dhashay ama looga dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo ilaahay ma jirto sigaarkii baan booro u shitay ayuu aniga yahay isirkii nasiibadiida yahay sawaanima naxi waxa maahe waxaan waa isku dabeecad waxaan waa isku dhaqan arso qof fiican ma waa ma jeesanayay kam sharma boy iyo kuwa ku heebta ee baraha bulshada ayagana dib kasta waxa weey kooda waalan iyo tooda khamriga cabti kooda khamriga cabi kooda social media ka dhawaaqay ma wataan laakiin maxaa ka raacay qofka markuu familkiisa loo ogaayay meesha ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegtay beentad umada u sheegayseen daarood iyo hawiye soomay dhamaan xamar unuka iskale sheekada ya daarood iyo hawiye loo wareejin in
ay lafaha kaaga jirta qabyaaladu waxaa ku ogaanaysaa nimca joker. Okay, nimca joker iyo ilka case markay isguursadeen waad u hambaliyay page-kaaga YouTube-kaaga community-giisa ayay ku jirtaa nimca joker hambaliyadeeda. qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu heelaya waa u hambaliyay nimca joker iyo ilka case imise fanaan oo qabiilada kala ah oo guursatay ama horumar samee weligaa laguma arag adoo u sameeyahay. Okay, farxiye kaba yare Nairobi ay tagtay waa la soo dhaweeyay soo dhaweynteedii maxaad inta u soo qaadato u soo dhigay fanaanadeena Nairobi sharaf lagu soo saaxib lafay kaaga jirtaa. sheekada ya daarood iyo hawiye loo wareejin ogaadeen baa ii soo haray Fiiri adiga ka xisho ka aamus. horta ogaadeen ma hawiye amase waa daarood aniga afkay furan baan aqaanaa mawd kama baqo adeerow reerkan 8 milyane waana la idinka awood badan yahay waana la idinka dhaqaale badan yahay waana la idinka deegaan badan yahay waana la idinka laandheeraysan yahay wallaahi been ma nin Axmed Rashiid la yiraahdo oo sarkaale oo saraakiisha ciidanka Kenya ka tirsan Horyaadan ismaqalno Sharma Boy waxa adeerkiis ah 50,000 oo Ethiopian ninkii Muqdisho keenay lanko geeka inta ana hadalay kan ii dhugusataan fadafadi arrinka la ii dilay waxaa waaye oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay. waxaa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof. waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kula kulmo aan kula hadlo kala hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan. waxaa yiri brother diyaar waaye waxba kaba qabi waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanaynaa because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laygu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii ragtirimo ah waxaan siri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo la iga badiyay maadaama la iga badnaa kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo Cadnaan Model iyo inta majeerteelaaba dhan waxaa balan waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo lama jeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa jabaad badan ay wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireenaa ninka la yiraahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay majeerteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dhirbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiri super power waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo hirtay waxaana la laayay ay ahayd darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif majarteen ragga dhaayay iyo dumarka dhaayay Sharma Boy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal
aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii maanta haddii aan kala qabweynahay qabyaaladina wacan tahay bal qoyskiina soo haro ha xukumo qabuuraha qabyaaladina wacan tahay bal qoyskiina soo hara xukuma qabuuraha. barnaamijka intaan u gudagelin daawadayaal waxaan idinkugu baaqayaa in aad like sartaan. adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin